war degdeg ah. Dowladda Soomaaliya waxa ay ka gaabsatay ka hadalka iyo shaacinta geerida Cali Dheere. Wararkii ugu dambeeyay ee geerida Cali Dheere ayaan barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa. Maxaa uu yahay dagaalka ka dhex qarxay beelaha Saleebaan iyo Cayr? Abshir Buqaari iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa haatan ku loolamaya xafiisyada ugu sarreeya dalka. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muuqdaa mid ka aamusaya arrinkan isla markaana aan eegayn isku dhacooda. Waxa kale oo barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa isla markaana aad ku daawan doontaan waa kuma amiirka sare ee ka tirsanaa Al-Shabaab ee lagu dilay Jannaale. Muxuu ahaa xil ceynkee ayuu hayay? Xog arrinkaas daaranaya barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa. Ciidamada xoogga dalku waxa ay keeneen dhowr libin oo isxigxigtay kadib dagaalka ay la galeen Al-Shabaab. Waan ka dhameyn doonaa hadafkii taliye Farxaan Qaroole ahaa in dalkan argagixisada laga cirib tiro ayuu yiri General Odawa Yuusuf Raage. Waxa kale oo barnaamijka idinku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyadii la doonayay in Al-Shabaab looga saaro Shabeellada Dhexe. Halkee ayay ku dambeeyeen? Maxaa hakiyay? Maxay tahay sababta beesha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa ay haatan aysan ugu biirin dagaalka lagu doonayo in dalka looga saaro Al-Shabaab? Ma dhaba in xawaadle lagu fiirsaday dagaalka Al-Shabaab? Maxay tahay kacdoonnada isdiidan ee durba ka curanaya gobolka Hiiraan? Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa maxaa ka jira Al-Shabaab ay hubaynayaan qaar ka mid ah beelaha dega Galgaduud iyo Hiiraan. Isku dhac beeleed ayay ka unkayaan halkaasi, waxaana durba fooda isdaray oo doodooda ay taagan tahay beelaha Muruusada iyo Xawaadle. Soo dhawaada, haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo subscribe noo saar barta aad naga daawanayso ee nuxurka wararka. Muuqaalkan saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee commentigana noogu reeb aaraahdaada. Afhayeenkii Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa maalmo ka hor la tabiyay in lagu dilay dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ceel Qooxle oo dhaca gobolka Hiiraan. Dhaawac culus oo ka soo gaaray Al-Shabaab dagaalka halkaasi ay kula galeen ciidamada dowladda ayaa jabkaasi waxaa la sheegay in lagu gaarsiiyay ilaa iyo 70 askari oo kooxda ka tirsanaa. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay qaarijinta sargaal lagu magacaabayo Qoorgaab oo dhinaca jabhadaha u qaabilsanaa Al-Shabaab. Afhayeenkii kooxda Cali Maxamuud Raage Cali Dheere qudhiisa dhaawac culus ayaa lagu gaarsiiyay. Maalmo lagu dabiibaya degmada Aadan Yabaal ee Shabeellada Dhexe ayay warar ku sheegayeen in loo qaado deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada Jubbooyinka halkaasi oo ay ka arrimiso Al-Shabaab welina gacanta ay ku hayso. Isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid joogto ah oo weerar isxigay ayaa la qaadayay. Cali Maxamuud Raage Cali Dheere in badan uu hadlayay Al-Shabaab waxay hadda u muuqataa in noloshiisii adduunka la soo afjaray. Beesha Xawaadle ayaa horey u xaqiijisay in uu geeriyooday Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo ay ku dishay deegaan lagu magacaabo Ceel Qooxle oo gobolka Hiiraan dhaca. Idaacadda codka ciidamada qalabka sidana hore waxay u sheegtay in Cali Dheere la dilay isla markaana uu ku dhintay deegaanada dhaca Jubbooyinka. Xogo kale waxay sheegayeen in wiilkii duqeynta lagu dilay ee uu dhalay Sheekh Xasan Daahir Aweys uu ka yimid markaasi uu dabiibayay Cali Maxamuud Raage Cali Dheere afhayeenka Al-Shabaab. Iyadoo intaasi oo dhan ay jirto ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala oo maanta warfideenka kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in dowladdu ay iyadu dib kaga hadli doonto kiiskan la xiriira Cali Maxamuud Raage Cali Dheere. Wariyaashu waxa ay weydiiyeen wararkii hore u baahisay idaacadda codka ciidamada qalabka sida. Waxa uu sheegay in warkaasi uu yahay mid idaacadii ay baahisay balse warka rasmiga ah ee dowladda la baahi doono isla markaana laga war dhowrayo. Dowladdu waxay u muuqataa mid ilaa ay haatan aan si faahfaahsan kaga hadlaynin dhacdadan la sheegay in lagu qaarijiyay afhayeenkii Al-Shabaab. Sidoo kale waxa xayiraad la saaray oo lagu soo rogay Xasan Daahir Aweys oo waxa laga mamnuucay barihii internetka ee uu ka soo hadli jiray. Xasan Daahir Aweys barahaasi laga mamnuucay ayaa waxa ay dowladdu qaaday tallaabooyin kale oo dad badan looga mamnuucay barahaasi.
al-shabaab culaysad kala duwan oo wajiyo badan leh ayay la kulmayeen bilihii la soo dhaafay oo dagaal toos ah ayaa lala gelayay. dagaalka tooska ee al-shabaab lala gelayay oo ahaa midka furmaha haatan waxaa bilowday mid kale oo toos oo dhinaca warbaahinta ah oo lala gelayo, taas oo dowladdu ay u muuqato in ay tallaabo kaga qaadayso dadka baahiya wararka al-shabaab iyo sidoo kale xogahooda. xasan daahir aways ayaa waxa uu ahaa nin aan marnaba ka gamban aragtidiisa la xiriirta al-shabaab, isaga oo dhowr jeer oo hore sheegay in al-shabaab uu jiro qodobo uu ku raacsan yahay. waxa uu ku celceliyay dhowr mar in dowladda iyo al-shabaab fikir ahaan ay u dhow yihiin al-shabaab. arrintaasina waxay ahayd mid si aad loola tacajabay. qof maxbuus ah oo dowladda u xiran in sidaasi uu yiraahdo. dhanka kalena haddii aynu eegno ikhiyaaray wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay degto beesha Mudlood. ciidamo kala duwan ayaa kol hore waxa ay beegsadeen deegaano iyo degmooyin dhaca qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamadii halkaas aaday xogahooda ayaan ku soo gudbinaya, balse aan ku hormaro. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ay ciidamada dowladdu ka sameeyeen deegaanka Jannaale ee Shabeellaha Hoose, kaas oo khasaare lagu gaarsiiyay al-shabaab. qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga ayaa lagu sheegay in howlgalkan lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab iyo 13 dagaalyahan oo ilaala u ahaa. sargaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Shire, wuxuuna al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Jannaale ku dilay horjooge Maxamed Nuur Shire oo argagixisada u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose, iyo 13 agarqabe oo kale ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu qoraalkiisa ku sii darayaa in sargaalkan iyo xubnaha kale ee la dilay ay qorsheynayeen weerar ka dhana ciidamada dowladda ee ku sugnaa halkaasi. ciidanka xoogga dalka ayaa ka hortagay dhagarta ay argagixisadu u soo maleegayeen shacabka ku dhaqan deegaanka Jannaale ayaa markale qoraalka lagu yiri. dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo yeeray dhinaca al-shabaab oo ku aadan horjoogahan la qaarijiyay, balse al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay noqotay mid ka gaabsata dhacdooyinka noocan ah. xaaladda ayaa haatan degan deegaankaasi, waxaana si buuxda gacanta uga hayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. dhanka kale dagaal baraha bulshada ah ayaa waxa uu ka dhex qarxay Abshir Buqaari iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa la isku adeegsaday. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Abshir Buqaari ayaa ku xifaaltamaya oo isku haya kursiga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo beesha Habargadir la siiyo. hadba jufada qaadanaysa ayaa lagu loolamaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu xoog saarayaa in beeshiisa cayr la siiyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir, kaas oo loo wado Axmed Ciise Guutaale oo haatan ah milkiilaha idaacadda lagu magacaabo Mustaqbal. wariyaasha iyo dadka baraha bulshada sida aadka u isticmaala ayaa siyaabo kala duwan ula safanaya arrinkaas. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa weerar xoogan looga qaaday baraha bulshada iyada oo la tilmaamay in uu dhacay ama markaasi uu boobay gargaar loogu talagalay dadka Soomaalida abaaruhu ay saameeyeen. waxaa la isweydiiyay oo dood ay ka dhalatay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur mar kale lagu sii aamini karayo xilkan. sidoo kale Abshir Buqaari ayaa la kulmaya weerar toos ah oo baraha bulshada looga qaadayo. waxyaabaha sida aadka baraha bulshada loogu qorayo ee ka dhanka ah markaasi Abshir Buqaari haddii aynu hal iyo mid ka soo qaadano. waxaa baraha bulshada lagu baahiyay qoraallo kala duwan oo markaasi looga hadlayay, markaasi lagu tilmaamayay dhaqdhaqaaqan isdiidooyinka ay socdo. Abshir Buqaari oo aad ugu xumaaday wada shaqeynta ka dhaxaysa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lacag ku bixinaya dacayada ka dhanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dalka dibadiisa ugu maqan sidii uu gargaar u gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaartu xoogan ay saameysay. Abshir Buqaari agaasimihii hore idaacadda Goobjoog oo aaminsan haddii qof ay isku saami yihiin oo saameyn xoogan ku yeesho dowladda inay isaga dhibaatadiisa tahay, ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu dacayado been abuur ka faafiyo markaasi
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xubnaha kale sida ra-iisul wasaarihii hore ee qaranka maxamed xuseen rooble. sidoo kale wariyaasha ama xubnaha sida aadka u taageersan dhanka Abshir Buqaari ayaa leh waxa uu cabdiraxmaan cabdishakuur qaaday tallaabooyin dhowr ah oo waxyeelo loogu geystay qaranka. beesha Mudulood dhaqaaqi ay waday wuxuu haatan u muuqdaa mid markaasi sii xoogeysanayo, waxaana maalmaha soo socda suuragal ah in ciidamada dowladda iyo kuwa beeshuba ay u ruuqaansadaan deegaanada al-shabaab haatan gacanta ay ku hayaan. daawada barnaamijkan wuxuu kaga imaanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biro oo fadlan subscribe oo barta aad naga daawanayso ee Nuxurka leegtu waa noo muhiim.